markaas ay dhawaaqeen oo yiraahdeen yabnata abi du'ayb wayxaki hoogaaga arbici calayna bal ukar inoo yara dhibri in yar ayar u soco xageedu ordaysaa miyayna ahayd dameertii liidatay la soo socon kari laay markaas waxay tiri waxaan ku iri bala wallahi ha wa iyadii maan bedeli markaas waxay idheen wallahi inna laha sha'na arin kala u sugan ajiib waxba jira meesh waxa ay tiri dhulkayagii baanu nimid baadiyihi reer bani sacad ayaanu nimid wallahi wax ka abaaraysan ma jiro abaar xoogle waxa ay tiri mar alla markii nabi maxamed aan meesha la nimid dhulkii ilaahay barako noo geliyay anigaan dirnaa dhulka oo abaara waxay soo noqdaan iyaga oo caanadaaya ayay soo noqdaan kuwii kale aniga markay diraan anigoo soodii ayaa soo noqda yaa markaas kuwii ariga u eegayay ayaa waxa ay ku yiraahdeen war meesha ariga ay daajiyaan inaguna ordo oo soo daajiya meesha ariga ay ku eegaan inaguna ku soo eega meeshaas ku eegayeen iyakana waxa uu noqdaan arigoogii iyakoo sidoodii annakana iyada oo maart ay nimcaysan yihiin waa barakada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mubaarak ayuu ah nabi maxamed mid barakaysan ayuu ah waxa ay tiri khayr ba meeshii noo furmay dhulkii ilaahay waa noo barakeeyay 2 sano sidaas ayaan ku jirnay 2 sano markii ay dhamaatay waxa uu ahaabay tiri yashubbu yani waxa uu korayay si ayna dhalinta iyo ciyaalku ayna u korin ayuu u korayay quwadda u beeraysa iyo asaanka iyo quruxda iyo hadalka iyo maarad waxa ay tiri wax lamida maanu arag in yar kadib waxa uu noqday wiil yar oo qurux badan oo adag ayuu noqday oo hadalkana waa 2 sano hadalkana sidoo u yaqaan aad maleyn waxa dhacay يعني اللغة العربية النبي وحوها فصيح بؤها أو بكر صديق با وحا وكيل يا رسول الله ما أرق عرب وحكا فصيح سنمان أرق نبي وحو كيل عليه الصلاة والسلام وما يمنعني وأنا من قريش محا إديدة يفصاح هذا أنو قريش بان كتنا شيء وأرضعت من بين سعد ربني سنة حليمية وماشا حق أنا ناس كلا يوسو نوجي حاجة سان كسو بربار واللقطة كسو برتي محا إديدية ساسو يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبسنا اللي قسوشي إن المها يرناس كلا سو نوجي كدبنا لسو علي وحا التريقات بان أقام مرقونينا إنان هو يدي وعلينا وإننا هايسات بركة يا خير كاسان دونينا وحا التري هو يدي بان أنمت hooyadii baanu qancinay niri magaaladu xanuun bay leedahay ka yar si u barbaaraya nooda waan marsiye bay tiri ala kulli way ogolaatay 2 kale ayaa lagu daray waxa ay tiri waa imisa sano 4 sano weeyaan hal xafido 4 sano ayuu la joogaa reer bani sacad 4 sano markuu dhamaystay iyo dhowr bilood ayaa arin baa dhacday bay tiri xaadithad shaqu sadr ayaa dhacay waxaa dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo la ciyaaraya caruurtii yareed ee xaliima ay dhashay cabdillaahi ibn alxaarith iyo aniisa iyo isaga oo la ciyaaraya xudaafa iyo aqalka dabadiisa kula ciyaaraya ayay malaa'igu timid malaku jibriil baa u yimid dhar cad buu xidhan yahay qofku iska soo dhigay tashtibu wata dahaba biyo ka buuxa biyo zamzam ayaa ka buuxa maxamed buu qabtay calayhi salaatu wasalaam ciyaalkii kale way yaaceen qaar baa meel ka khaawusaya iyagoo arkaya ayuu kala dilaaciyey calooshiis waxbuu ka soo saaray uu tuuray markaasaa waxa uu yidhi hada xadu shayطaani minki shayطaanku waa meeshuu degayey ama shayطaanku jirka insaanka wuxuu ku leeyahay meel waswaaska ugu tuuro ayuu ku leeyahay taasaa nebiga laga sifaynaya calayhi الsalaatu wasalaam shayطaan waswaas ku tuurayo oo male khalaas
ولا سيئد بنا يا النبي عليه الصلاة والسلام رسالة لو ديبيا وحي با لو ديبيا جسد كيس عقل كيس ولا صار ربينا يا النبي عليه الصلاة والسلام ولا سوسي ولا صوم ميري بيها الزمزم كان لقم ميري تشتي ذهبه يجوكو ولا علماء waxay leeyihiin biyaha zamzamka lagu meeray waxa daliil u tahay biyaha zamzamku inay yihiin kuwa ugu fadlan nabiga ka warramay calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi jibriil baa ay yimid wuu i qabtay laabtayduu kala dilaaciyey ama qalbigayga riwaayo kale wuu ka soo saaray wuu sifeeyey dib buu igu celiyey kadib nebigu waa sara kacay calayhi salaatu wassalaam isagoo oo wejigiisa u dhalaalayo carruurtii baa carartay reerkii bay u soo sheegeen oo yidhaahdeen arrintaasaa dhacday soo orod waxa ay tidhi xaliima sacdiya aniga iyo odaygaygii oo ordayna ayaana nimid meeshii waxaan aragnay isagii oo wejigiisa u beddelan yahay riwaayo kale isagoo ooyaya ayaanu u nimid markaasaa ku nidhi maxaa ku helay markaasuu ka warramay qisadii nin baa ii yimid way ii qabtay siday ahayd buu uga warramay nebigu calayhi salaatu wassalaam anas waxa uu yidhi waa markii dambe nebigu weynaaday waxaan arkayay meeshii yacni nebiga laga jeexay calaamad yar baan ka arki jiray buu yidhi way cabsatay haddeed inay dhibaata qabsato ayay ka cabsatay ka yar waxay tidhi waa inaan hooyadii u celiyo way doonaysaa kan yaree barakaysan aqalka joogo laakiin waxay cabsanaysaa dhibaato ay heshay way celisay marka waxa ay ku celisay hooyadii ayay ku celisay hooyadii xaliima sacdiya waxa ay tidhi markaan hooyadii u imid ayaan ku idhi waa tan ammaanadii waan kuu keenay way iga shakiday waxay tidhi markii hore aad baad u doonaysay hadda maxaa jira adaan keenay waqtigii oon maarata weli wax inuu harsan yahay markaase waxay tidhi waa kan ilmihii iga qabsa ammaanadii waxay waddaba way ka soo saartay waxay tidhi nin baa u yimid oo caloosha jeexayo caynkaasoo waxa ay ku tidhi aamina كلا والله لا يصنع الله ذلك به أرنت إلهي دباتو وقم كينيو وح دباتو أو ويل كيغن كل عي مجرو إن لابني شأنه ويل كيغير أرنبا السجن وحباجيرا مكو الرماه أرنتيس وحا أيتيري مركي أن أوريستي إن علوشكو قادم محمد فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه وحكفضوا ذا من أرك علوش انكسيدي وليس مدرمين ما أرتاي لبات مدرمين وحا أيتري ولا أيسر منه وحكفضوا ذا من أرك والله مركان دليين النور بقى الصباحي أنا إلى بصرة أركي شام والله سيدي عرورته ورد شان أمودلين waxa uu dhashay isaga oo qacmaha soo horeysiinaya samadana eegaya ayuu dhashay marka waxay tiri khalaas inankayga ha u cabsan inay dhibaata ay ku dhacdo ha u cabsan ana haynaya anu ila joogi maca salaama barakadiisa iyo khayrkiisa anagu heli dhimashada tagista ay tagtay aad ba uga murugood xaliima sacdiya hooyadii baa loo keenay hooyadii way barbaarisay nabiga calayhi salaatu wassalaam laba sano haysay xaliima haysa xaliima far hooyadiina laba sano waa imse jir markaa nebigu waa 6 jir nebigu calayhi salaatu wassalaam markii da'diisu ay 6 gaadhay ayuu nebigu hooyadii ka hays isaga iyo ummu ayman oo adoontii hooy aabihii ay haysan jiray tii korisay weeyaan nebiga iyo cabdilmuطalib oo ahaa awowgii nebiga awowgii calayhi salaatu wassalaam waxay tidhi madiinaan tegaynaa waxaan soo bari madiina
qabrigii aabihii ayaan soo tusi abtiyaashii ayaan soo tusi oo xagga iyakuna deganaa xagga markii ay tagtay madiina waxaa loo socdaa waa 500 oo kiiloomitir weeyaan ina dadkooga ay soo barto ay doonaysay nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa xanuun baa xaga ku qabtay way xanuunsatay markii wadada ay soo noqonayaan ay ku soo noqonayaan maka ay dariiqa ku dhimatay meel maka iyo madiina u dhaxaysa oo magaceega la yiraahdo al-abwaa ayay ku dhimatay xaggaas lagu aas iyadiina xaggaas ayay ku dhimatay nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam da'diisu waa imsa jir waa 6 hooye iyo aabba midna male hooyadii culimada qaarkood waxay leeyihiin 20 jir dhowr iyo 20 jir baa 22 23 meelaha aabiina imsu ku dhintay 25 jir ayuu ku dhintay nabiga calayhi salaatu wassalaam cudur ma helin way caafimaad qabaan labaduba nabigu calayhi salaatu wassalaam laba waalid oo liita oo tacbaana kama dhalin labaduba way caafimaad qabeen oo jirkoogu u dhisnaa laakiin ilaahay baa arrin kale ka raba meesha waxaa la leeyahay khalaas muhiimadiinii nolosha way dhammaatay ininka waxay ahayd inaad maxamed keentaan maxamedna wuu yimid qof kale lama rabo inuu rabeeyo uu soo barbaariyo maxamed ilaahay baa soo barbaarinaya wax walba waa laga ilaalinaya nabiga calayhi salaatu wassalaam ilaahay wuxuu rabaa inuu soo barbaariyo isagu laakiin nabigu oran jiray adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ilaahay baa edbiyey inanka yar hadda dhirbaaxdid aabihii buu ordi aabbo aabba hadduu lahayn hooyadii buu ordi hooyo nebigu hooyana male aabbana male yaa allah su u yidhaahdo weeyaan nebigu calayhi salaatu wassalaam waa la soo edbinayaa luqadii baa la soo baray jirkiisaa la soo dhisay nebiga calayhi salaatu wassalaam hooyadii iyo aabbihii waa waayey nebigu calayhi salaatu waa kii ilaahay ugu jeclaa khalqiga haddaad aabbo weydid nebi maxamed xasuuso calayhi salaatu wassalaam hadday hooyo kaa dhimato nebi maxamed hooye aabba midna ma lahay 6 jir weeyaan nebigu calayhi salaatu wassalaam nebiga waa la weydiiyey calayhi salaatu wassalaam asxaabta waxay ku yidhaahdeen maa awalu bid'i amrika yaa rasuula allah arrintaada si u bilaabatay nebi allow maxay ku bilaabatay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam aniga yacni hooyada iyo aabbahay ima bilaabin arrintaydu xaggaa kama bilaabmin way soo socotay anaa dacwatu abi ibraahiim anigu waa ducadii nebi ibraahiim baan ahay nebi ibraahiim muxuu lahaa rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نبي إبراهيم وحكو دعي إلهه كسو صار رحدودا قف إياك كمدة أو أدقة أو بربارية أو كتاب كبرة أو حكمة دبرة ودعاء نبي إبراهيم دو إلهي أقبله ولا سودي دعادي يكون دعي دونتا الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي بصوضا كذب نبي وحا يجي عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى بشارة النبي عيسى أيام ولي أهيبوا النبي عليه الصلاة والسلام نبي عيسى وسيب بشاري وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وسيب بشاري نبي عيسى سيب بشاري وحي من دونه نبي بقى من دون أحمد ليلهذا يا محمد عليه الصلاة والسلام بشارة صان أهب النبي يقول عليه الصلاة والسلام النبي يقول وحا ويلي هو يدي وحا أركت النور وافتمنا يا قصور الشام فيلا الشام كثيرة قريها الدار الشام كثيرة نور افتمنا يا والشام علماء وحا يلهذين ابن كثير أكل وحا ويلي وحا علامات أطهي دليل وحا أطهي إن نورك أجاري دون الشام إن إسلامك آخر زمن والشام اسكو إيمان دونه والنبي عيسى آخر زمن كمركم مسيح الدجال وأرض وصومر ومال والبا وفساديو إن يدتك مسلمين تو الشام اسكو إيمان دونان والنبي عيسى حقا كسو دق دونه دمشق
waxa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa